Dhabar xanuunku waxa uu calaamad u noqonayaa xaalado kala duwan oo caafimaadka la xidhiidha. Lumbago mise back pain waa ereyga afka qalaad lagu dhaho. Qofka wuxuu xanuun ka dareemi karaa dhabarka qaybta sare, dhexe iyo hoos. Qaybtani waa qaybta ugu cabashada badan. Dhabar xanuun kaliya xanuun ma noqdo, laakiin waxa uu ka dhalan karaa iyadoo la waxyeeleeyo mid ka mid ah mise in ka badan seedaha, murqaha, dareemayaasha iyo lafaha saameeya dhabarka. Sidoo kale waxa uu ka iman karaa xubnaha u dhow dhabarka sida kelyaha. Waxyeelladu waxay inta badan qofka ku soo gaadhaa marka uu qofka si qaldan u qaado shay culays ah mise si lama filaan ah loo sameeyo dhaqdhaqaaq sirgaxan awkward movement. Waxaa kaloo keeni kara fadhiga mise istaaga badan. Calaamadaha qofka inta badan uu ka sheeganayo waa xanuun, laakiin haddii dhabar xanuunka ay la socdaan hal mise laba ka mid ah calaamadahan soo socda, fadlan la xiriir dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow. Qandho, culays lumid, miisaan lumid, lugo xanuun, dhabar xanuun, inuu qofka iska xajin kari waayo saxarada mise kaadida. Guud ahaan, dhabar xanuunka waxaa lagu daweyn karaa iyadoo la isticmaalo dawooyinka xanuunka dejiya ee la oggol yahay in laga iibsado farmasiyaha, laakiin xanuunkani inta badan uma baahna wax dawo ah, iskiisa ayuu iskaga bogsadaa, halka qaar kalena lagu daweeyo qaab qaliin ah. Daawadaha sharafta badan, waxaa kaloo jira qaabab kale aad ku daweyn karto dhabar xanuunka adigoo jooga gurigaaga. Isticmaal baraf mise diirimaad. Adigoo ku qabta baraf mise shay diirimaad leh halka aad ka dareemayso xanuunka, waxay yareyn kartaa caabuqa iyo xanuunka. Haddii aad isticmaalayso baraf, fadlan si toos ha ugu qaban maqaarka. Waxaad ka sare marisaa soft mise tiish yar si loo ilaaliyo waxyeellada maqaarka. Jimicsiga. Xeeldheerayaal ayaa tilmaamaya in uu jimicsigu qayb ka noqon karo yareynta dhabar xanuunka, islamarkaana jidhka uu noqdo mid isu dheelitiran. Laakiin inta aadan biloobin jimicsiga, marka hore waxaa wanaagsan in aad la xidhiidho dhakhtarkaaga. Cunada. Haddii aad heli karto, waxaad ku dadaashaa cunada ay ku jirto kaalshiyamta iyo fitamiin D-da, waayo waxay sare u qaadaa adkaysiga iyo tayada lafaha. Adigoo qaata cunada caafimaadka leh, waxay qayb ka noqonaysaa kantaroolidda culayska jidhkaaga. Dhabar xanuunku waxa uu nuglaan karaa dadka jimicsi la'aanta ah, dadka fadhiga badan, hooyada uurka leh, dadka da'da ah, dadka sigaarka caba, dadka jimicsiga si qaldan u sameeya, dadka qaba xaaladaha caafimaad sida bararka kala goysyada mise iskooska jirka.